الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. waxaanu maanta halkan kula kulannay oo xadiiska madaxweynaha kula kulannay wasiirka ku-xigeenka Ingiriiska is'aalan oo nagu soo booqday maanta Somaliland saan uga wada hadalno wadciga iyo duruufaha waddanka Somaliland. waxaan u sharaxnay Somaliland inay tahay ummad nabad jecel soo dhaweynaysa inay caalamka ka mid noqoto koonfurteegeedu muqadas yahay jecel inaanu loo ayna tahay inay xasiliso waddankeeda gudaheeduna ay caan yihiin lana yaqaano haddii Ingiriis yihiin ayaga dadkii xuduudaha dhigooda aad iyo aad u yaqaana Somaliland ayna marna ogolaanayn inay ka aqbalayn in aan meelo la isku haystaa jiraan meelo la isku haystaa ma jiro waddanka gudihiisii weeye tagista Somaliland ay haleex tagtayna waxa ahayd inay dadka doonaya shirka inay ku qabtaan qalalaasaha wada ay kala erido tiina waan ku guulaysanay dadkiina aad bay noo soo dhaweeyeen Somaliland waxay doonaysaa inay dowladnimada gaarsiiso meel kastoo ka mid ah waddankeeda waa dadkayagii ayagaa noo yeeray ayagaana soo dhaweeyey waxaan u sharaxnay Somaliland inay xuduudaheedu muqadas yihiin dagaal ma rabno rabshad ma rabno 23 sano aan nabad iyo wanaag iyo maamul wanaag ku noolayn cilaaqaad fiican baan Ingiriiska leenahay relationship wanaagsan hawlo badan baan ka shaqeynaa xagga nabadda xagga horumarka waana u mahadnaqaynaa Ingiriiska cilaaqaadka fiican aan la leenahay hase yeeshee waxaan Ingiriiska u sheegnay Somaliland xuduudadoodu inay yihiin qaar mucayan ayana kuwa dhigan yihiin inay nabadgelyadeeda sugayso inay xil ka saaran yihiin dadkeeda meel kasta joogaan min Laasqoray ilaa Riyaxato xil ka saaran yahay dowladda Somaliland inay dadkaasi nabad ku sugnaadaan waxaan u galnaa nabad sugno waxaan jecelahay